dhammaan madaxda qaranka ee halkan isugu timid dhallinyarada maanta xafladdan iyada mudnaanta leh ee xafladdan leh odayaasha ufo ee maanta halkan jooga ee lixii soddon sannadood ka hor iyagoo dhallinyaraha halkan qalaan galay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaana ugu faraxsanahay maanta tirada badan ee ka joogta ufo oo ragga qaarkiisii taari oo kale ay suukaa dambeysay lixii soddonkaa sano ka hor inaan maanta halka ku kulanay iyo rag badan oo magacooda halkan laga soo qaaday. odayaasha ufo kuwa intaa loo haysto kuwa nool oo aan leedahay ummadiina iyo shacbiga Soomaaliland waxaa u gashay wuu ogyahay qarankuna abaalkana waa idiin hayaa taariikhduna waa idiin hayaa haddii aydaan meelaha qaarkood mararka qaarkood mudnaan aad tagaysa aydaan helin waad u safri kartaa waayo wixii waxaad weydeen aa u soo marteen iyaga kasta kaga dhafeeya dhallinyarada Soomaaliland. bismi illaahi raxmaani raxiim. salaakin waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo shirweynaha kulan ee dhallinyarada Soomaaliland. 6 sano ka hor maanta oo kale waxay ahayd dhallinyarada Soomaaliland maalin madow. maalintaa madow oo xanuun badan oo ay ku jireen halgan ay dhagax kala hortegayaan taagi iyo beebe. dhallinyarada Soomaaliland maalintaa joogta waxay u ahayd maalin dhiigoodu daatay, maalin dagaal noociisu ku cusub yahay adduunyadaba oo aan hore loo arag ay galeen oo bilaabeen. lama arag odayaal dhuunta iyo aabbayaal dhuunta oo carruurtooda dagaalka ku sii daaya oo haweenooda la cararayso. taariikh bay ahayd aabba mahayntooda hooyadu maalintaa lahayd dhallinyaradu ee bulshada qabo. haddii aan sidaa la yeelin oo dhiiggaan loo hubinaa maanta farxaddan iyo joogeen kuwaynaan joogneen. ma jiro adduunyada halgan iyo horumar iyo taariikh aan nafta loo hubin. dadka ilaahay oo kala abuuray qaar baa lagu hamriyaa inay iyagu nafta u huraan oo ay dhibaatada u qaataan inuu dalkooda horo maro. marka guusha la gaarana inta badan dheefta laga badsado. haddii aanay dad noocaasi jirina adduunyada horo marteen. intii ilaahay ku hamriyey ee dhallinyaradii ah ee qaar ufa ka mid yahay soo galeen ee qaar jabhadii soo galeen ay ku dhinteen ee qaar ku dhaawacan yihiin ee aan qaar la awoodna waxay ka mid yihiin dalka kaasoo ee aan ciidna awood eedaaso kuwaasana dhigooda ugu horumara ilaahayna kuwaasoo farabadan dalkeena ka dhalay. ku raadinaayo dhallinyaradu waxay badan tahay iyo waxaa loo baahan yahay in badan oo laga hadlo. dhallinyarada Soomaaliland maanta waxaa u yaallaa duruuf adag oo ay marmarka qaarkood diya jabaan oo nafta loo dhacaan oo ay garan waayaan mustaqbalka iyo meel u socdaan. adduunyada inta la nool yahay mar walba wuu jiraya xaalad adag oo kala hortimaada. qofkana markay dhibaata ka hor timaado 3 tallaabo baa la gudbo. waxay doonaysaa harta dhibataas faqri ciriiri cadow bahalkaa hori markaad wax kuu daran soo taagto 3 xumood qaadaysa inaad wadato carabto oo si carabto intay meel soo gaarayso inaad shiibsan taageergeeda hadduu libaaxyaa kuno hadday dhib tahay ha gudisho iyo inaad jaalinayso iska celiso. inta badan waxaa guulaystaa qofka dhibaatada jaarjaraya. marka dhallinyarada Soomaaliland waxaan leeyahay dhibta maanta hortaala tuufa adag baa dadku soo martay oo adkaysteen inaydan ku niyad jabin ee aad xal u raadisaan aydan kala cararin oo aydan badan isku tuurin. intaa markaan soo dhaafo xukuumadaha maanta waxaan diyaarinahay wixii badnaa ee aan kaambeykii balan qaadnay, wixii badnaa ee wanaagsanaa ee aan ku soo hawgeynay, waxa badan ee aad naga filaysaan inaynu ka wada hadlo wixii xaqiiqa ah iyo tallaabooyin kasta loo qaaday. wixii aan balan qaaday dhowr qodob baan maanta wax ka odhan. muddadaan xilka haynay bal dhallinyarada halkii aan qiiminteeda geeyay. kolka hore dhismaha dowladda qeybtooda ka sii mar labaadka waxaan u aragnay dhallinyarada inaynaan hadal iyo ballanqaad
isku wareejino inaan odhan saasaa la yeeli doonaa saasaa la yeeli doonaa wixii tallaabo aynu qaadayno aynu isla eegno dalka suurtagal horta waxaan furay accountkii soomaaliya ee dhalinyarada soomaalida hore loo meelayay waa kii guddoomiyaha sawiraha waxaa lahayahay accountkaas waa beebaanka soomaalida gufrigi lacagtii ugu horeysana waa ku shubay 2 billion point 5 Somaliland shilling oo $200 xukuumaddu waan iska warhaynaadoo xalka dhaqaale ku saabsan ma wada fuli karto laakiin waxaa laga rabaa qorshe iyo nidaamin sida hawsha loo qaban lahaa in xoogga qaranka meel la isugu geeyo dhalinyarada sida waxla qaban lahay markaa anaga waajibkooda waxa weeye account waa furay qaarankii waa ku shubnay oo weliba naga culus waxaynu ahaday waxaynu samaynayaa guddidii maamul ahayd taasina waxaynu eegaynaa shareholders inta ka soo qayb gasha ayaynu guddida ka abuurayna saa darteed waxaan dhiirinayaa ganacsatada oo maanta dalkeena dhaqaale wuxuu ku jiraa gacanta shacabka dhaqaalaha xooggiisa wuxuu ku jiraa gacanta shacbiga haddaana qaybta kuway ka qaadana dhalinyarada halkan dowla gaari mayno taas waa iga farriin shacabka guud ahaan aqoon-yahan haddii waxaynu aasaasayna aan aqoon hogaaminna iyana waxa laga yaabaa inay iga hor timaado marka waxaynu dadaalaynaa oo dhalinyaraduna ka hormoodu qorsaa ka hormaraysaa account wuu furan yahay qaarankii dowladdu waa yaallaa guddida si loo samayn lahaa waa inaga soo wada qayb galaa qof aqoon ku dara iyo qof adduun ku dara taasakaasa iga taala account labaad oo dhalinyaradu leedahay waa waxbarashada waa kii imka ka hadlayay inkii sooriyo oo hadda waxbarashada igu taagtay waxbarashada sare toositeeda waynu isugu tegaynaa wasaaradda tacliinta xukuumadda iyo shacbiga waynu isla aqoonsanahay inay jaamacadadu soo saaraan dad aan suuqii shaqadoodu diyaarahay laakiin waxaa ka horeysa inaynu xagga hoose kasoo dhalo ka hagaajino iskuullada bilowga ah macquul ma aha in iskuulkii qaranka ee dowladdu maamulaysa qaran ka dhexeeyey oo dadka inta usoo halgantay iyo inta u shaqaysa iyo inta lahjaa dadka kale carruurtooda ku jirta ay ka hoos maraan oo in badan ka sarreeyo dugsiga furtay oo weliba lacag ajnabi addoona uu ku qaado oo carruurteena intii badnayd ee dadku dhalay ay noqdaan iskuullo markaa tirta aada moodo meela maarta laga guuro qaraabadaa midu leeyahayna afar saacada idaacadda una faaniso carruurtuna carruurta kale ka shishirtay ku qurban tahay ee qarankeena qaran ku ahay qolkiiba 8 dadkeena waxay ku jiraan iskuullada dowladda waa inta muwaadiniinta dhabtaa nafta horta waa askarta waa mujaahidiintii waa reermihii waa dadka baadiyaha joogaan shaqey waa inta farax gantay ee aan meesha la qaadanay gabooyi dadka usoo shaqaysa waa inta ilaa faqiiriinta waa dadkii qaxaaya magaalada soo noqday ee aan magaalada horti ku hayn ee ku nool afiya gacan sida shirkanta aroortii calada islaanta ama hooyada waxay suuqa ka soo qabato habeenkii waxaa iyagu kalisa ee intaa kala lahay 80% dadkeena carruurtooda inay hadho labaatana intay waxoogay qaataan ama qurbaa ka yimaadeen ama hayhow shaqeeya ama dowladda ha noqdeen ay carruurtooda doona wax ku barato oo ay xitaa soomaaliya garan waayaan dee adarka ka socon mayso sidaa darteed waxaan qaaday wasiirka tacliinta waa joogaa in ardayda ku jirta iskuullada dowladda ee publica ah aynu ilmo kasta oo ku jira standard 1 ulada ilaa weyl ka baxayo arday waliba bugaagta waxbarashada helo oo bilaasha waa 160,000 iyo in ka badan dhalinyarada bugaagta u baahan lacagta bugaagta oo sanadka ku baxaysa waa 1,800,000 intaa dowladda bixiso oo ku shubay wasiirka tacliinta account saddex waxa weeye in badan waxaan ku balan qaadanay daan kulmiyana aan ku oleynay in dhalinyarada ka baxa jaamacadaha iyo iskabiriyaasha ay geli doonaan shaqo qaran oo aan uga jeedo qofka in horta loo bislayo wadanimada iyo mas-uuliyadda dhibaata ay nagu dhacday soodkiisa lagu dambeeyey waynu kala qoqobanay
ardayga hargeysa xaafadda uu ku dhashay iskuulka galo sidii u horreeyay xaafadda dhinac kale hargeysa 5 kilomitir jirta China uga duwan gobolada kalena ma yaqaan nasiib darro kala dhacday magaalooyinku waxay u degayihiin si jees-jeesan oo qoro marka qofkii markuu dhashay waa adduunkii u soo baxay oo ilantagii bilaabay ilaa secondarygii xaafadooda ayuu ku koray psychological uu xidhay adduunka reerkoodaas ugu koobta reerkoodaasa ugu wanaagsan iyagaa ugu cadaalad badan iyagaa dadka wadan way dulma yihiin inta kala ka dhigay afarta jirku ku gaara master ku soo qaata jaamacad ku horeynaya dad wax ku baraya dee waa hab oo u yaqaan cilmiga oo jaamacad ku fiican waa dhaxtan waa beediyar u yaqaan xisaabta laakiin bulshadeeda hogaaminteeda dee waxa laga yaabaa inaan ka masterki ee ku dhashay xaafadda la yidhahdo idaacadda inaanu haasaabo u kurkursan gaba joogtaa halkan calaamadaha ama dhinaca kale oo adduunya u haysto shaqada qaranka waxaan ka rabnaa inaynu dadka isu keeno inay wada shaqo galaan inay horta Somaliland bartaan intaan ciidanka gaarin inay ogaadaan dadka siduu yahay iyo waxa jira inay maskaxdiisu korto dabeetana berito wuxuu noqonayaa mas-uul qoys buu ka noqonayaa qaran buu qabanaya hay-ad buu qabanaya isagoo oo dee dalkiisa ugu yaraan Somaliland garanaya horta wada inuu kala qaado ninka Somaliland horta waxaynu ka doonaynaa inuu aqoonyahanka caalamka oo dhan la tartamo oo adduunka oo dhan yaqaano oo ka hadlin kara global hadduu hargeysa ku hortagto malaas caalamka uu sanaado weliba xaafadka si ahaado dee aad heer soconmayno markaa shaqada qaranka waxaan qoraynaa inay dadku saddex galaan inay shaqada qaranka qabtaan inay wadankooda bartaan inay daljacaylka bartaan in waxa dalka looga baahan yahay ay bartaan in mas-uuliyadda saaran ma aha in shaqo lagu cadibaayo oo kadeedayo oo askari baa iyadoo oomjac ma aha way ka weytaan meesha صدوق أنا وفر كوس أنا وفر وحقوش البليون شو بوري البليون بور مش إلى 10 مليون يبليون حسنا حبة دروس هذا كويس وتجلس كي أوري ما بشوي بعد سنتين آخر كيسة وإنه رجال أوري ما حديد أي عيد كانوا حقوق ترى سووا لون بهاي كانوا كنتوا تجلس حديد حقوق سارنا إن بش ديسمبر وغيران من نوفمبر أي بلاد بتهاوشة دب وصورتها دفعت أول رئيس غير الله وايو marka oo horeysa waxa soo waxay kharashado halkee loo dhisaa macallimiintii raashinkii diraas waa wax loo yaqaan taasay dhaqaalaha dawladda taana waxaan soo jeedinaynaa in la soo taabaa suuto waayo waxa ku xiran mustaqbalkii dalkeeda kaasna waa ka hal dhalinyarada u diyaar ka afraad waa ciyaaraha waxa la yaabay adduunyada kale ciyaaruhu waa meelo u lacag iyaga lacag soo saar kuwa ciyaarana tirooyin aydaana guud oo inaan xisaab ka helin maskaxdooda ayuu hubiga qaata kalaabiyadooduna lacagta ay ku shaqeeyaan dawladda ma ka lacag badiyay dadkan taa ma faahsan ciyaarta waa la yimaadaa waxa la rabaa waxa la diyaar waa halkaas waxay baahan tahay inaan caqli keeno ciyaaris loo koriyo dee nimankan ididaya ee jabaya ee foos jabaya ee ciyaaraya ee horumarinaya وانا شيء وقتها لعد إياه وهو وصار دولته ما بحكي تبقى فلان حكم لكن واحد بحكي كان الشعب واي يقول لك كل جبته أمام بعض تجربة سيدا عارف العجلة الأولية تبقى في الوضع غير اللي بحكي قرار عيشة ما تفضل ورا ستة دولار ما تفضل ورا مية إنما العيال يصير هم يستكنوا ويفضل ما صار ولا تقول القرار كذا واحد العجل بضم العيال معي يل كذا markii aanu hadana xilka la saaray ee wasiir Boosnaa nabadu caatay annagoo qaali karin waxaan u ogolaaday in saddex istaajin dugashi loo dhigo lama dayacsiro lama soo maro dhigo oo ku kacaysan lacag ka badan 380 kun oo dollar saddex wadada oo dhamaan lacagta badkeedu waa tii wasiirada ka tagay wasiirada maanta saxaab shaqada go'aysan joona bay qaaday بقولنا يا فاكهة سيرنا بابور هم يقرأ بابور يشوفي وطريقة من الجو وزير لعب بقى وزير
gaween dhalada hore u soo raaca u kaleeybaa si ay dadkiisu u arkaan dalka u shaqeynaya ee loo qaadan inay tahay wasiirada iyo madaxweyne meel laga xoogsado oo laga tanaado inta kala baktido maya kamid qaranka waa wadina kumeynti aan ku daranaha afartaa kooda saaka waa free waana bilaasho intaas oo ku gala way naga tahay waxaan u baahanahay in la xisaabtamo erayga lagu celceliyaa waxa weeye musuqmaasuqa daafuraanta waxaan u baahanahay qof walba dee in musuqmaasuqa laga ilaaliyo dowladda ulaqoyaa wax walba tuuri waxaan moodaa in ay noqoto ceebti mar haddaad xilli wada qaado wax walba watay tuur baa tahay waxbaa hadee waxaa maal qaban dadka oo dee aanad ka aldaa taagtaan macawaal weerayaa horta aduu qofka qadiya dowladda caayo aduu musuqmaasuqa ma ka baxsan tahay qofkan xaq baa lagu leeyahay adoo qofa musuqmaasuq qoyskaaga gurigaaga joogto ma ka dhibsay markaynu raggan idhaahno waxay noogu lacag badan mushaharada imika wacdiba ka mushaaro badan ninka wastaadka laaya foormaanka wastaadku maalintii uganaa $100 buu qaatay $150 kolbaa intay ku daraaya sicibara ay u qaata qandaraas u qaata markuu intaa qaato $30 oo uli mayha 180 Soomaaliland ah 80% wasaadada hadda xisaabsan maalinta meesha wuxuu ka tagay $5 uu reer u geeyay tobanqaad uu ku qoray tobanna waxa laga yaabaa inuu barbare ku daadiyo horta gurigiisa musuqmaasuq ka banaayay balaytii xoogiisa yaa yani aragtiisu ahay haddana dowladda wacay kaan madaxweynaha waa martii fuuteega u dambeysay xisbi iskala tegay ayuu qabtay ardayga aan shaqeeyo ee jaamacad ka soo baxay eriya jabsan wuxuu ku qasbaa ehelkiisa saaxiibadii smartphone iPhone ama ku kala huraadweyn in la keeno qasaba ay tahay xadiis baa jira oranaya naarta waxa ugu horeeya faqiirkii badan smartka ayay u baahan hooyada bugta isaga u baahan qoyska u baahan lacagta galaysa ma jiraan dhalinyaro oo xaragoonaya oo aroortii xaafadooda laba dhagax qaado dhan duwa ma jiraan arday ama dhalinyaro Soomaaliland oo xaragoonaya sanadar gaaray oo aqalka uu seexdo walaalihii ama hooyada xaalad u jira miyaan musuqmaasuqa koowaad ahayn ilaa dadku doonalaataadu wada hada khawsa ya anaga nacay oo caalam ka dhigan laakiin adiga waa wax kafaya markuu qofku isaga soo nadiifiyo ayuu qofka la xisaab kara ha maamulka ballaaran qalad uu ka imanaya maamulku farbay khalad badan baa ka imanaya Mareykan iyo mid kasta wax iswadaarsan iyo wax qaldan iyo wax dawladda institutions ka dhaxal jira laakiin yaa toosin kara dad moralkooda iyo shaqo qofkooda markuu hore nadiif u yahay oo ay ceeb tahay markuu qofku dhaqaaqo moral intaan ciido xukumiba oo soo weero reeqad waxa soo maxad sameys de hadayna taa gaarin oo ay maanta ka wada sahan oo la yiraahdo de ma xirsa maanta dadka xilka la saaraa waa dikoo ka marka saa waliba kii xilka ugu caayay waa ku dadaalay afar nooc ay wasiirka madaxweynaha ka ana ku dooranay taas oo ah yahuudda kibaa lagu yeeray soo bixis $5 ama $2 soo bixis isla ku dooran qaata markuu shaatiga soo waana ku soo dooranay bal way ma hayo aniga soo baxaysan bartoon tuma shaqay miyaa u maraysan dawladda shaqada ka bax badalkiisu inuu ku baxo marka uu si ka nafta la qabto oo isagu markaa safar gal drogkiisa waa ku binaad wata marka lagu chuqeeyo garaaco wada maraysan marka haday dadku ku guri hayaan musuqi hadana ku caaya war ma soconayso cadaalada weyn nin baa nin dilaya booliska soo qabanaya toobayna fudud tagaya abta horta laga maxaa loo eegata horta reer maxaa loo eegata wallahi waxa lagu jeeday inaan jirin hadda waa dhex dil baa yaala anaga ka sheegay ku dheeraanaya musuqa waa in loo wada guntada أنا أروح أقول أرسل نسخة سيارة أنت بنا المسكين لا يمر سيارة كذلك لكن واحد هذا عيد المدرسة سيارة يوم يستلم سواسة وكسر يا مدرسة وحن قرر نسبة لقاضي امتحاننا أنا تشريسي في نوع أنا كنوا كنوا شغال وضع عتاي المدرسة اللي مريو لكن ولا ولا بتجا وما كان امتحان القراءة ولا
امتحانك حلقة ولا سوى شقية ولا شقارة كم يستطيعوا هذا هو اللي إيمان سني وهو اللي عايز يدور لكن أنت بتقول كلام بيننا أنت هذا وصوره وقفنا قاعد الحين إذا كنا غير معي وهذا ده نروح على المباراة قاضي بين آب وراحي وقف كهرباء قف المغيرة لكن أحسن بسبب وهذه المرة هو وقف كان مسؤول كواد وحلاها كانت المال كان يقتل عمره سين كل عسيرة هي شغالة ورهاوه المنتهى سيسون وانو أي بسحوا لها اليلا ولد يحب ضبع صار وحيو تالو وحماي هذا ما تقول كفار ولا لوضي هذي إلا ما أنت استعمار كي لأريا هي وهذي أولها ما أو حلا جاتي وحلا جاتي تقال ولا جاي كذا كان شغالة لكن ده رجال سكوه لميسو ما بدي أيوه أو ما قبنا أيوه تنتهي لما يجي أيوه هذانا واحد يقول يعني أنا الله صعود لبس كيجا إياه استاذ كيجا إياه تلفون كيجا إياه وحي ورمي هو عرفت آدم مليون كي هاي هو نسي وين قال هذا كل هذا مش غيره وحنا ما نطلع يهربوه بكت وين المرض وين كل شيء أسمع وين كانوا بديه هذا وين كانوا بديه مرة شغال صوت ورنا ما قال هذا وين مرت في الجوسكا حبلها هدان وحبل جالسين ده مرة تقول له عنتها اسمه سوي قال كنا حبلها قوتنا حبل يقول له بيشوفه ما ينفع يقول ما إيمانيا لكن واحد إيمانيا تومك كأسكو كأسك هيدا وأنا بس في صوت ستوري لاين ولا صوت لاين من إلى هذا أنا كائن كون سميته يقول كذا لكن ما أعرف ورثي في إيران وعلوه وإنها ساعات وإنها حاول لقوه هذا الله قوته ويكسر كيف عن كاس أنت ما يمكن تسوي أنت محتوى صوتك أو بالبطن هذا ولا بدأيه بلا صوتي لو هذا جاهل يمكن نو أنت وش يسوي كذا ورا وارك أستوي وارك مسين لكن أنا تولى حلا بس يكون الله يسوقها إلى هذا هو شيء